السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وحين بلابي دونا تاريخ بقول قف وأدونك كجت جاي سامين بدلينا أنتي أي نولاين وحبدن أدونك دنيا لي وحا هجامية بقول كعقف نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم والنبي أي رأسيهين أفر ميلاد وميل تدبد بليون أدونك درسارا هذا بقى سيد كين محمد والرسول كلا صدري أمة دمانته وكي قدم بيين نبي ذا وإمامك الرسوشا وحلي من دينة إسلامك والنبي مالن قيام دينتي سأكريا شقينسو والنبي لقصنتي شفاعة قيامه ونسبك نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام وعرب قريشي عدناني أبيه وعبد الله ابن عبد المطلب هو يدي وآمنة بنت وهب nebigu waxa uu ku dhashay Maka waxa uu dhashay maalin Isniin ah 12 Rabiicul Awwal sanadkii Aamul Fiil sanadkaas oo ahaa sanadkii boqorkii Xabashida ee Abraha uu u soo duulay xagga Kacbada si uu u dumiyo isagoo wata maroodiyaal badan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa uu u soo diray shimbirahaas oo siday dhagxaan naara wayna ku halaageen Nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu aabihii dhintay isagoo ku jira caloosha hooyadii nabiga waxa uu lahaa 40 sano oo taariikh ah intaan loo waxyoon intaan si aynaan dhaafin dhalashadiisa waxa jiray caado carbeed ahayd in qofka dhasha ay nuujiso gabadh aan hooyadii ahayn sidaas daraadeed nabiga waxa nuujisay Suwayba al-Aslamiya iyo Halimatu Sa'diya 4 sano oo ay nabiga haysatay waxay aragtay nolol aad uga duwan noloshii ay ku jirtay haddaba haddii aynu eegno kafaaladii nabiga hooyadii waxa la oofsaday isagoo 6 jir ah iyadoo lagu aasay tuulada Abwaa oo u dhaxaysa Maka iyo Madiina nabiga oo rajo iyo agoon ah waxa koritaankiisa ama barbaarintiisa la wareegay awowgii Abdul Muttalib isla 2 sano ka bacdi waxa geeriyooday awowgii waxaana kafaalo qaaday adeerkii Abu Talib su'aasha meesha taala ayaa nabiga adeeradii way badnaayeen maxaa kalifay in Abu Talib lagu aamino 2 sababood oo jiray awoodood ayuu Abu Talib nabiga u qaaday oo uu koriyay isagu kow nabiga aabihii iyo Abu Talib waxay ahaayeen isku hooyo 2 waxa u dardaarmay nabiga awowgii Abdul Muttalib korinta Abu Talib nabiga waxa uu raacay safar ganacsi waxayna la kulmeen raahibkii Baxiira wuxuu u sheegay in ay ka muuqdaan Muhammad oo caruura astaamo nabinimo wuxuuna Abu Talib ka dalbaday inuu dib u celiyo si aan loo dhibaataynin sidaas ayaana dib loogu celiyay nabiga Maka ari raacnimadiisii nabigu yaraantiisii wuxuu ariga ku raaci jiray nawaaxiga Maka sida uu ku cadeeyay xadiis waxa uu yiri lama soo saarin nabi ilaa iyo waa kii ari raacay saxaabadu waxay ku yiraahdeen hatta adiga miyaad raacday waxa ugu jawaabay waan raacay waxaana ka raadinayay quutar daruurigayga muddo badan markii uu joogay nabigu ee uu ka koray da'dii caruurnimo waxa uu ka qayb qaatay ganacsigii uu ugu baxayay safarkii labaad ee Shaam Khadija bintu Khuwaylid radiyallahu anha waxay ahayd gabadh u saaxiiba sharaf iyo maal badan waxay ahayd ganacsato wuxuu nabigu u noqday shaqaale ay ku lamaanaysay adoonkeedii Maysarah astaamo badan oo ay ku aragtay nabiyullaahi Muhammad sida aaminaad iyo akhlaaq waxay ka dalbatay inuu guursado xilliga oo ay da'deedu yada ahayd 40 sano halka nabiguna uu ahaa 25 sano 40 sano ka bacdi iyo bilowgii waxyiga nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ahaa mid ku cibaadaysta diintii abayaashii ee nabiyullaahi Ibraahim calayhi salaam
intaan la soo dirin nebigu maalin maalmaha ka mid isagoo ku sii socdo godkiisii cibaadada ee qaaru xiraa waxaa ku bilaabmay waxyigii waxaana u yimid jibriil waxaana dhex matay qiso cajiib ah wuu ciishiyey oo cunaha ayuu ku dhegay wuxuuna ku yidhi iqra' wuxuuna yidhi ma garanayo waxaan akhriyo walwal badan iyo murugo badan iyo hawl badan ka bacdi waxaa loo caddeeyey inuu yahay nebi waqtigii maka iyo dacwaddii qarsoonayd bilowgii wax kasta way ku adkaayeen nebiga balse wuxuu gudbinta dacwadda ka bilaabay gurigiisa iyo qaraabadiisa khadiija oo noqotay haweenaydii ugu horraysay ee rumaysan nebiga halka cali binu abidaalib uu noqday ilmihii ugu horreeyey ee rumeeya sayid binu xaaris oo noqday isna addoonkii ugu horreeyey ee rumeeya oo ahaa addoonkii khadiija bintu khuwaylad abubakar binu sidiiq oo noqday ninkii ugu horreeyey ee ragga rumeeya abubakar oo ay gacantiisa ku soo islaameen rag fara badan oo uu ka mid yahay cusmaan binu cafaan subayr binu alcawaam cabdiraxmaan binu cawf sacad binu abi waqaas iyo dalxa ibnu cubaydullah iyo rag kaloo badan wahaajiriddii dhulka xabashida nebigu wuxuu saxaabadii amray inay ka haajiraan dhulka maka sannadkii shanaad ee soo bixistiisa waxaana bilaabatay hijiradii koowaad ee saxaabada waxaana tiradooda lagu qiyaasaa 10 nin iyo 5 haween ah oo ay ka mid ahaayeen cusmaan binu cafaan iyo ruqiya bintu rasuulillaah sala allahu calayhi wasallam waxaa hogaaminayay cusmaan ibnu madcuun 3 bilood kadib waxay ku soo noqdeen maka oo ay joogeen dad badan oo diinta islaamay intii ay maqnaayeen kuwaasoo ay ka mid ahaayeen cumar binu khadaab iyo xamza ibnu cabdulmuntalib quraysh oo bilowday go'doomin sidoo kale ku tashatay dilka nebiga sannadkii 7 nebigu waxa uu amray saxaabada inay galaan hijro labaad haddana waxay dib ugu soo noqdeen dhulkii xabashida iyadoo uu hogaaminayo jacfar ibnu abi taalib markan tiradoodu waxay gaadhaysay 73 nin iyo 11 dumara quraysh waxay ka daba tageen saxaabadii waxayna dacwo u geeyeen najaashi oo ahaa boqorkii arlada xabashida balse isla welwaleeg badan kadib wuxuu qiray in diinta raggani wadaan tahay sax wuxuuna gacmo madhan ku diray quraysh sidoo kale ka doorbiday abaalmarino qaaliya inuu soo dhowaysto raggan diinta daraaddeed uga go'ay dadkoodii iyo qaraabadoodii kufaarta ahayd xataa hantidoodii uga yimi kana wata qaydad iyo qaraabo yaroo islaantay guusha ugu weyn oo noqotay boqor najaashi oo islaamay kadib risaale uu nebigu u soo diray iyo saxaabadii oo cabsi la'aan ku jooga arlada xabashida najaashi waxau noqday qofkii ugu horreeyey ee nebigu ku tukado janaasatul ghaa'ibah caamul xusni sannadkii murugada waa sannadkii 10aad ee soo saaridda nebiga sannadkan waxaa ifka cidleeyey oo la oofsaday labadii garab ee nebiga sala allahu calayhi wasallam oo ahaa khadiija iyo abudaalib 3 sano ka hor hijiradii madiina intuuna dhiman aad buu bukooday qurayshna waxay ka faa'iidaystaan xanuunkiisa iyagoo rasuulka ku hayay dhibaato weyn ilaa ay hamigooda gaadhsiiyeen inay dilaan nebiga dacwaddii ka baxsanayd maka amase daa'if rasuulku naxariistii nabadgelyo korkiisa haatee waxa uu aaday daa'if iyadoo uu la socdo sayid binu xaaris waxa uu la kulmay qabiilkii taqiif waxuuna u soo bandhigay tawxiidka ilaahay kadib dhimashadii adeerkii iyo xaaskiisa waxaa dhibaato weyn u geystay kufaartii quraysh nebigu waxa uu taqiif ka dalbaday taageero hiil ilaalin iyo rumaynta ilaahay nebigu waxa uu rajaynayay aqbalaad laakiin waxay ugu jawaabeen jees iska daa inay rumeeyaane waxayna ugu dareen dhagxayn ilaa dhiigga nebigu uu dhulka gaadhay dheelmintii nebiga ama al-isra wal-micraaj waa mid ka mida mucjisooyinkii ugu waaweynaa ee nebiga sala allahu calayhi wasallam waxaa la sheegay inay ahayd habeen isniina ka kicintii hurdo gaaban kadib waxaa qaaday isaga iyo jibriil daabad magaceedu yahay bureyqa waxay ku soconaysay xawaare sare iyada oo tallaabadeeda dhigaysa dhammaadka aragtideeda waxaa nebiga la geeyey masjidul aqsa intaa kadib waxaa nebiga lala kulansiiyey nebiyo badan iyadoo loo kaxeeyey caalamka samooyinka sare la kulanka nebiyada iyo mucjisooyin badan kadib oo uu soo arkay nebigu waxaa la soo faray 5 salaadood waxaana la soo baray qaabka
salaada loo tukanayo iyo waqtiyadeeda oo mas'uul looga dhigay Jibriil. Hijroodkii Madiina. Nabiga iyo saxaabadiisu waxay u haajireen Madiina. Qisooyin badan oo dhacay si socodkii ay ku socdeen Madiina waxa ay la kulmeen soo dhaweyn weyn. Muhaajiriintii reer Makka iyo ansaartii Madiina waxay ku walaaloobeen diinta Islaamka iyagoo ku habboonna ka gaadhay inay xaasaska isu furaan. Qaswooyinkii iyo duulaanadii Nabiga. Duulaano badan iyo dagaallo badan oo Islaamku galay wuxuu kaliya Nabigu ka qayb qaatay 27 duulaan oo uu ahaa hogaamiyaha gaadhay guulo badan oo uu hantiyey. Dhulal badan oo islaamay. Qaswadii Tabuuk oo dhacday sanadkii 9aad ee Hijriyada ayaa ahayd qaswadii ugu dambeysay ee Nabigu hogaamiye u noqdo muslimiinta. Qaswooyinka kale ee uu Nabigu ka qayb galay waxaa ka mid ahaa qaswadii Badr, Uhud, Banu Nadiir, Ahzaab, Banu Qurayda, Hudaybiya, Khaybar, Mu'ta, Fatxu Makka, Hunayn, Tabuuk iyo qaar kaloo badan. Xaasaskii Nabiga. Xaasaska Nabiga waxay ahaayeen 11 ee ugu horeysay Khadiija uguna dambeysay Maymuuna. Waxayna kala ahaayeen Khadiija, Sawda, Aisha, Hafsa, Zaynab bintu Khuzayma, Salama, Zaynab bintu Jahsh, Juwayriya, Safiya, Habiba iyo Maymuuna. Awlaadii Nabiga. Nabiga sallallahu alayhi wasallam caruurtiisu waxay ahaayeen 7, 3 wiil iyo 4 hablood. 6 ka mid ah waxaa dhashay Khadiija waana Qaasim, Abdullahi, Zaynab, Ruqiya, Kalthum iyo Faatima. Midka soo haray oo ah Ibrahim waxa dhashay Maariyatul Qutbiya. Dhammaantood waxay dhinteen Nabiga nool, kaliya waxaa nolol dambeysay oo Nabiga kadib sii noolaatay Faatima. Dhimashadii Nabiga sallallahu alayhi wasallam. Nabiyullaahi Muhammad waxaa la oofsaday maalin Isniin ah 12kii Rabiicul Awwal sanadkii 11aad ee Hijriyada ama 633 miilaadiga. Nabiga waxay da'diisu ahayd 63 sano. Geerida Nabigu waxay calaamad u tahay soo dhawaanshaha saacadda qiyaamada sida uu isagu sheegay. Haddaba intaa waxaan ku soo afmeerinaa intii ugu muhiimsanayd ee taariikhda Nabiga. Way ka ballaarantahay taariikhda Nabigu intan, balse waxaynu soo qaadanay intii ugu muhiimsanayd ee dhacday intii uu noolaa ilaa iyo Nabigu laga oofsaday. Wassalaamu calaykum.